Ma soo saari kartaa qofka dilaaga haddii aad u fikri kartid? Maalin maalmaha ka mid ah May iyo Ben waxay aadeen xaflad. Waxa ay guriga kaga tageen wiilkoodii yaraa ee Peter. Markii ay soo laabteen waxay arkeen wiilkii yaraa ee Peter oo meeyda oo qolkiisii yaala. Yaa wiilka dilay ayaa la iska rabaa. Waxaa laga shakiyay 3 qof oo kale ah, gabadhii shaqaalada ahayd, gabadhii cunuga yar haysay iyo kuugii wax karinayay. Gabadhii shaqaalada ahayd waxay ku jawaabtay anu dukaanka ayaan aaday, waxaan soo iibinayay caag cusub maadaama caag qaybihii hore ee biyaha u dhamaaday oo u marnaa. Gabadhii cunuga yar haysay ee babysitterka ahayd waxay ku jawaabtay anigu dharkii uu bari xidhan lahaa Peter ayaan u sii diyaarinayay. Kuugiina wuxuu ku jawaabay anigu casho ayaan u karinayay Peter. Waxaa la iska rabaa haddaba yaa dilay wiilkii yaraa ee Peter. Haddaba dilaaga dilay wiilka yar waa dilaaguna wuxuu ahaa gabadha shaqaalada maadaama ay tiraan waxaan soo iibinaya caag cusub oo biyo qaybiya maadaama caagii hore marnaa. Marka aad arkaysid muuqaalka horaantiisana waxaad arkaa markii waalidku tagayaan inuu caagaas biyo ku jireen uu buuxay. Mr James ayaa laga helay qolkiisa isagoo meeyda. Qolkiisu wax daaqada ma lahayn, albaabkuna waa uu xidhnaa. 4 qof ee kaliya qolkiisa furayaashiisa haysay ayaa su'aal la weydiiyay. Sophia oo ahayd gabadhii shaqaalada ahayd waxay tiraan waxaan u yimi inaan kiciyo Mr James markii aan arkay isagoo meeydana waa aan qayliyay. John oo adeegaha maqaadimka hayna wuxuu yiri anigu markii aan qaylada maqlay waa aan soo orday qolka ayaan milaydka markii aan daarina waxaan arkay cunihiisa oo ay iga jirto mindi. Sarah oo ku jirtay maamulka waxa ay tiri anigu waxaan la soo orday John markii uu soo ordayay. Markii uu laydka daaray John waxaan aragnay arladoo dhan oo wada dhiiga. Jack oo ahaa cuno kariyihii wuxuu yiri anigu waxaan diyaarinayay quraacda haba yaraatee ma arkin wax alla wixii dhacay. Haddaba 4 qof yaad isleedahay dilaaga oo dilkan geystay ma Sophia, John, Sarah mise Jack. Dilaaguna wuxuu ahaa gabadhii Sophia maadaama qolku qol madow uu ahaa daaqadana uusan lahayn mana ay arki karin James inuu meeydaha. Habka kaliya ay ku ogaan karteen waxa ahayd iyadoo hore u sii ogeydba. Ma soo saari kartaa qofka dilaaga haddii aad u fikri kartid? Maalin maalmaha ka mid ah ayaa duufaan magaalada ku dhuftay kadib waxa uu sababay in arladii oo dhan wada madoobaatay oo wax la arki waayay. Kadib markii dabayshii duufaanta ay dhamaatay waxaa la arkay gabadhii ka shaqeynaysay guriga oo dhimatay. Yaa dilay ayaa la iska rabaa. 3 qof ayaa laga shakiyay oo su'aal la weydiiyay. Ninkii xaafadda iska lahaa iyo gabadhii marwada ahayd uu qabay iyo ninkii xaafadda ka shaqeynayay ee adeegaha ahaa ama qaadimka. Ninkii xaafadda iska lahaa ayaa waxa ku jawaabay anigu buug ayaan akhrisanayay, qolkayga hurdada ayaan la joogay. Gabadhii marwada ahaydna waxay ku jawaabtay anigu markii shilka uu dhacayay TV-ga ayaan daawanayay. Qaadimkii ama adeegihiina wuxuu ku jawaabay anigu waxaan xisaabinayay kharashaadka reerkayga ku baxa anoo qolkayga jooga. gabadhii xaafadda ka shaqeynaysay ee shaqaalaha u joogtay yaa dilay ayaa isleedahay markaad aad maskaxda u toojisid. jawaabta qofka dilaagahayna wuxuu ahaa marwada uu ninkan odayga ay qabay maadaama aysan TV daawan karin iyadoo uu blackout dhacay. blackout waxaa la yiraahdaa wixii korontada iyo wixii la halmaama saameeya ee jara.